السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. magacaygu waa Leila Sheekh Aadan. kusoo dhawaada barnaamijkeena ee toddobaadlaha ah Somali Wilmer TV oo si toos ah uga daawan kartaan dhammaan reer Wilmer. adduunyahana waxaad kala socon kartaan Facebook-ga haddii allaha wada la ogolaado. maanta waxaa marti inoogu ah Cabdullaahi Salaad. wuxuu ka mid yahay waxgaradka degan magaalada Wilmer. Cabdullaahi marka hore ku soo dhawow telefishinka Somali Wilmer area. Cabdullaahi waxaan ka wareysanaynaa taariikh nololeedkiisa insha Allah tacaala. xilligii Soomaaliya waxaa isbedelay markuu qurbaha yimid. Cabdullaahi marka hore waxaad nooga warantaa taariikh nololeedkaaga oo kooban insha Allah. Mahadsantahay Leila. taariikh nololeedkayga haddii aan kaaga sheekeeyo, anigu waxaan ku ganacsaday muqdisho anoo jooga oo waddanku barwaaqo yahay oo nabad tahay oo dowladdu magaranaysaa kala soconayso oo kala dambeyn iyo magaranaysaa wasaaradu dhisan yihiin, dowladdu magaranaysaa heer sare ay tahay. sidaasay tahay waa shaqayn jiray. waxaan ka shaqayn jiray warshad Norway leedahay oo gacmaha iyo lugaha fishaarka lagu sameeyo. kadib waddanka waan isaga ladnaa, wallahi waddanka aad iyo aad buu fiicnaa. kadib waxaa imaaday burbur iyo haddaan burbur yahay dagaal baa imaaday, farxumaa ka dhacday. wax weyn baan u dhexeeya burburkii iyo magaranaysaa nabadan wax weyn baan u dhexeeya, waad garan kartaa. marka waxaa xusuusan kara hadda oo yacnaha ogaan kara qofkii markay dowladdu Soomaaliya nabadda ahayd, qofkii joogay ama maamulhayay ama ku noolaa. marka dadku wuxuu iska ahaa dad iska noloshu heer sare tahay. dabcan markaa kaa soo qada noloshu inay wanaagsanayd, dadka lama oran karin boqolkii xataa hal baa shaqayn jiray. dadku VIP buu iska ahaa. cuntadiisa sanad walba waxaa la iska garanaysaa dee waxaa la celebration-a la samaysan jiray. dadku farxad iska joogto haystay, qabiil ma jirin. dhibaatada hadda maanta ka jirta Soomaaliya iyo qarxa kan iyo waxa kana ma jirin. Cabdullaahi waxaad tiraahday boqolkiiba hal baa shaqayn jiray mise toban baa shaqayn jiray? hal baa shaqayn jiray baa isleedahay ama kaba sii yar. Okay, qoyska marka aabaha shaqayn jiray miyaan soo hooyadaa shaqayn jirtay waagii dowladda la haystay? see dakhli ay ku heli jireen guriga marka familka ahaan? wallaahi horta dadku yacnaha dadka shaqaa ama wiilkaa shaqayn jiray ama odagaa shaqayn jiray ama hooyooyinka uma shaqada uma baahneenba oo yacnaha dhibaataba kama jirinba waddankaba. reer dhana waxaad arkaysaa shaqaynaynin oo business ka nool oo wanaagsan, baabuur haysto. yacnaha dadku waa isgarab qaban jiray. qofka saaxiib baa jiray, qabiil ma jira, saaxiib baa jiray. marka saaxiibkaabaa maanta waxaad yacnaha haddaad u baahatay wax adsa oo saaxiib ma garanaysaa. marka wallaahi yacnaha odagu waa shaqayn jiray, gabadhu hadday odagu ama wiilkaa shaqaynayo ama hooyadaa shaqaynayso, qofka markaas ma garanaysaa chance haysta ayaa shaqayn jiray. laakiin noloshu waa shaqaysanaya. waa mahadsan tahay Cabdullaahi Salaad. dowladdiyaa soo joogtay, waa ka soo shaqaysay. xilligii colaadaha sokeeye ee Soomaaliya ka jireen halkay joogtay, maxaase dareentay? wallaahi dhibaatada ugu weyneed baan dareemay, murugo aad u fara badan baan dareemay. waxaan weligay arkay ma arkay qarxayo iyo dagaal iyo dhiig iyo dad dhimanayaan arkay. waan soo cararay ilaa Kenya soo cararay. marka ma baabuur baa kusoo carartay, ma diyaarad baa kusoo carartay, ma lug baa soo martay? dadba habba waxay kusoo mareen Soomaalida qaab kala duwan. adi qaab noocee ayaa kusoo gashay waddanka Kenya? anagu waddanka gurigeygii anoo joogaa inta madaaficna lagu garaacay baan kulug iyadoo way go-an tahay baan dhaawac anigu ah oo lagu go-an tahay baan Kismaayo soo galay. yaa la keenay baabuur baa lagu keenay Kismaayo. marka lugta maxaa kaa gooyay? madfac baa ku dhacay guriga oo dhanba, dad baa ku dhintay. ilaahay ku xidhay alxamdulillah. anigu dalka waa ku dhaxsado dadka ka dhasay banaawan ma marka Kismaayo ilaa Kenya qaxootiga maxaa ku imaatay? baabuur kaleeto iyada Kismaayo lafteeda dagaal ka dhacay oo iyada qax kaleeto aan soo galay ilaa iyo labada Kenya ka soo baxay ilaa garasa qaxootiga aan soo galay. markaa qaxootiga markaan soo galayna nolol tii Soomaaliyana ka bedelan, tii qaxana ka bedelan baan markaa soo galay. qaxootiga xero noocee ayaa soo gashay? qaxootiga xerada magaceed? xerada Xagadheer baa la yidhaahdaa. Xagadheer waa kasii tagay, nolosheeda baa igu adkaatay. Kenya hore usii galay. adiga banaadir xero la yidhahdaan tagay oo taanka u dhaway iyo taanka iyo xeryahaas oo dhan. marka nolosheedu baan ereenahay. markii dambe kaak baan ku dambeeyey. kaakuma baan waxaan ku noolaa ilaa 14 sano ku noolaa. ka waran nolosha kaakuma? nolosha kaakuma nolol aad iyo aad u ciriiri badan bay ahayd. waa nolol oo aad u adag. waa dhul cimiladiisu kulushahay, waa dhul gacnaha bahal badan, waa dad macnaha ma garanaysaa dad oo dalku u yahay
oo ramiyi ah oo wax laala waxa kaa dilayaa deganaa marka alxamdulillah ilahi waa naga soo bixiyay nolosheena wax kastaba waa nagu adkaad laakiin waa aad bay noogu adkay nolosheena naftigeeda waxaa jirtay kaakuma oo kaleeto sida aan ku maqlay weliba tegin laakiin sidaan ku maqlay soomaalida iyo dadka ajaanibta dagaala ka dhexeeyo oo mararka qaarkood guryaha laysku gubaa dhibaatooyin fara badanaa ka dhaco adigu weli dhib mala kulantay intaa meeshaas ku noolee wallahi waxay igu dareed baaskiil yar anoo wato baalka tricycle-ka la yidhaahdo gacmaha lagu wareejay anoo wataa ayaa niman turkaanaa jidka istaagay nimankaa turkaanada nin bay isoo direen waa niman qolyo watay ahay marka nin dal yidhaahda ninkaan wata istaag bu maxay rabtaa markaasaa dhuba dhagax bu dabcan madaxayga ufto marka isagii baan saa usoo qabtay waxaan iskala dhacanay baaskiilkii aan watay baan iskala dhacanay dee anigu nin lagu ambaan ahaa dhulkaa jeebsada saasaan u qabtay marka waa qeeyay marka nin baa soomaaliya kusoo baxa markaan ogaaday niman qori watan halkaas kula joogaan yaa ninka soomaaliga waxaa dhi war dhimo jira iska noqaa mawta nin dilaan baan ka baqay mawta marka adugu ninkii anigu onaada laakiin waa ka xoog batay markii dambe halkaas baa lagala hadlay waxaa la yidhi waraa musaga sii daabaa la yidhi ninkaa la yidhi sii daaba hadii gacmo baa kugu firay iska sii daaya hortaasaa bay ugu daray anigoo baaskiil saaran baa markii nafta laga raabiyo la baaranayo oo dhulka iskula dhacday cabdullaahi salaad waa mahadsan tahay marka kadib markaa kaakuma kasoo tagtay ee aad qurbaha timid noloshaada qurbaha ka waran wallaahi nolosha qurbaha wax badan baa isakee bedelay anigu horta wadankii anigu aan ku dhashay nolosha aan ku haystay iyo magaranaysaa nidaamkii aan ku haystay iyo aqoontaan ku haystay halka kuma haysto laakiin waxaan ku haystaa nabadgelyo nolol kaleeto oo magaranaysaa cusub maraykanka ah oo qabsashayna u baahan tahay wayna adagtasaa uga qabsatay maraykanka marka anigu qaxootigii iyo dhibkaa soo maray iyo kiyaatigii iyo wixii horta waa kan haysta utaa fiican wadan aadin lahayna waa dareen joog baa layidhi marka aminka haddaad dabad banaanka usoo baxdo waxaad leedahay hore baa lagu dafiya waad leedahay banaanka ku qaadanaysaad leedahay yaa kudafa dadka dad baa dadka shaaba lagu yiri marka cunug oo qof wataadada ragta waxaa leedahay cunuga xagga keentay waxaas leedahay cunuga waa lasoo xanaad is leedahay ma garatay ilmihii baad waardiyeynaysaa soomaalida waxaa leedahay qof madow ama qof cadaan oo kaleeto hadduu aragto oo ag barayo walaa kale waxaad leedahay cunuga ag barayo ma garatay marka habeenkii guriga laba qoful baa la saarahayaa oo qolka jiifka qoful baa sii saaraysa baraaya iska xiraysa ma garanaysa wadankii waa wadan nabad ah marka waa lahaanshaha adan wadanka lahayn oo adan u qalanin wahay markii aad imaatay qurbaha dhibkii kugu badnaa ee aad aragtay maxay ahayd wallaahi dhibkii ugu badnaa waxaa markii askari ay joojiyey ushata way daba socday ilaa iyo wuxuu iga soo raacay tuulada gasheesa lajufa gasheesa iga soo raacay ilaa aan waran tuulada yidhahdaan soka markaan soo gaarin ugu shatay markuu joojiyey wuxuu yiri miyaad cabsan tahay yiri markaasaa maad qabri uma cabada wuxuu gaari faan oo cagma soo dhaafto oo naagu tamay baa ima soo dhaafin marka gaari kale kugu qaldaayo way ama naag baa dhasho beebeen wax kusoo shaqo markaa naagta maad soo dhaafin may ma cabsan tahay may bahashan afka ugu jeekaray alka afkii kaliyi waxba uu iga waayo gudniskiyaan ku noqonaynaa nikicib yiri marka tuuladana waa ka baqanaa tuuladana waa tuulada lagfilna waad ka warqabtaa dadka madowga ah ayaa waxaana laga dhali waxaana lagu yacanaha laga dhaadhacsiiya in lagu geli jiray meesha dadka madowga lagu geli jiray inay tahay geedaha xataa madax ka gogo-an baa leewa geedihii lagu xiri jiray baana ugu yiri gudnis baan yacanaha markhaatigii baan ku noqonaynaa nikix markuu yiri baqal waxaa isoo dhacay meesha ku geynaya markuu meesha ugu xirra dadka madowga lagu xiri jiray markaasaa waxaan abgis ma aqaan baa markaasuu yiri maxaa tiri ma garanayo ingiriis qofka ku cuyur markaasa telefonka garaaca no god qofna ma garanayaa gacanaha iga qabanahay telefonka adiga qofkeenso arisagii ugu taagan oo rabo in la celiyaba ayaanu soo waxaa la yiri arrin baa jirtaa emergency markuu dhaqaaqay barani ka daba dhaqaaqday wax kasoo cararay hortaasaa way ugu daray ninkii qasab buu iga dhigay inuu raba inuu yidhahdo cabsi waa cabsadaa ganaax buu rabaa maogta inuu ku saaro tigid buu rabaa inuu siiyo maxaa marka kugu farxadda badnaa intaa qurbaha joogtay wallaahi waxay ugu farxadda badnayd maalintii aniga baasboorka aan qaatay maalintii gacanaha la yidhaha interviewga galay oo la yidhi waa baastay oo wakati baastaa gacanaha dhaarta qaado horta maalintaas ay ugu farxad badnayd dadka waxaa ku jirtaa oo xafladaha sameynaayo xaflada ma garatay marka waxa weeye wadankaa sharci baa lagu joogaa haddaad gacanaha dadka hadda sharciga aan lahayn dhibaata haysato wada ku kurba hayso hadda waxaa leeyahay maanta qaldeer hadduu gal waa la tarxiilaya baa leeyahay oo
baqaya qofkii markaad xoogaa sharciga leedahay waad macnaha waxoogaa qalbigaa kugu deganay maogtaa marka waddankana dee waxaad muwaadin ku tahay baasiboorka aqoonsigii baasiboorka maanta aad baan u farxa runtaan ku sheegaya ma garad waxaa adduunka igu farxadda badnayd laakiin markii aniga aan gabadhay lahaday gabadhaydo aanan weligii arkin markaan anigu aan la hadlay gabadhayda maba arkin weligiiba hooyada umaa soo kaa dambaysay weli gabar baa leedahay marka labadooda anigu waxaan ahaa yaalka xaafadan iska islaamaha intaan intaas kursaa isaga tegi jiray moogtaa marka labada cunug oo wiilkii hooyada kala aabo kala hooyo waa marka gabadhaadi markii kugu horeyso telefoonka maxaa dareentay meeqa sano jirta markaas waxaan filayaa adiga waxaa baan malaynayaa 2015 macnaha laakiin cabdullaahi waxaa fiican caruurta in hooyada iyo aabbaha ay isgarab qabtaan ee la caawiyo ee la barbaariyo si loo soo saaro ubad fiican